munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay gudoomiyaha xisbiga midnimo qaran Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Badiyow ayaa lagu qabtay magaalada Xisbiga ee wadanka Holland. munaasabadan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Holland ayaa si weyn loogu amaanay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Badiyow wax ka qabashada waxbarashada Soomaaliya kadib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo waliba arrimaha samafalka oo ay sheegeen inuu wax weyn ka qabtay. dhanka madadaalada ayaa waxaa xafladaasi heesa wadaniga ku soo bandhigay fanaanka weyn ee Cabdi Baadil Ibraahim. waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha mar labaad aad buu mahadsan yahay intaanu soo timaadeen intaan aragtina laba dhiibeen aad baad u mahadsan tahay shirkaaga iyo imaantinkaaga waana ku garab istaagaynaa adiga kuwa Soomaalida jecel oo wadaniyiinta oo wax isbedelka doonaysa waan garab istaagaynaa. أنا عبد الرحمن وحارة كان مدعى بدي حمر بار حقيقة كل ما بدل بار وياه لكن ورقي سو بدل والمقلي شيء تذكرون Soomaaliyeed hawaysan kara oo hadii maxay ahayd loo gartana aan u arko inuu qof wax ku oor noqon karo yuu kamid yahay anigoo ku hadlayo magaca xisbiga tayo waxaan si kal iyo laab leh aan u soo dhaweynayaa maanta مدن عبد الرحمن باديو أو dalka Holland noogu yimid sharaf iyo qiimo badan bay inoo tahay mudane soo dhawow baan ku leeyahay. aad iyo aad baan ugu kalsoonahay xaqiiqatan Cabdiraxmaan iyo amtaashiisu haddii ay dalkaas ummadooduna ay daba gasho dad iyaga soo kala ah iyo asagoo kale yani in wadada ay lugta la heli karayso. أنا صدح صفة ورنتي عندي كلا وأخذ الله صلاة ورهجانية صدح صفة الكواد ونن إلهي مسيء أنا أقول من يستي علمي ديني جها صفة اللبات ونن سواء هانجري عندما دي هراء الصومالية صفة الصدحات علمي ديني عن صار شيء وحقوق دراسة علمي مادي أفرق أقوى أن سينكر حسب النوع النقلي inaan ugu deeqo xafiis waxaan u gartay dhismo ku yaala magaalada Jowhar inaan ugu deeqo ugu dambeyntiina Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Badiyow ayaa faahfaahin dheer ka baxshay xisbiga midnimo qaran wuxuuna si weyn u cadeeyay in hadafkiisa uusan ahayn inuu isagu noqdo madaxweynaha Soomaaliya balse uu rabo in Soomaaliya ay noqoto dawlad. xisbiga mabaadi'du ku dhisan yahay iyo dadka dawladaha jooga xisbiga maxay ka helayaan حزب وحنا كل سنة صومالي وحاله وكري وياه كلا قيب سلام بيريس يه كلا قيب سلام دينات صومال حزب قال وحو أساس كدكتي حزب قال يعني قرر قادر تقهاو قادري أهاو أحمدية أهاو إصلاح أهاو نوع هالسنوة جماعة أهاو نوع هالسلفية أهاو حزب قال قرر كاجا إسلام كيها تكشرتو من ناحية أصلا ما يرسوا قارة مجرد هاي قرر هذا حزب يمان ورا صومال قبيل كأنا حزبنا من نجار وصومالي صديق لا صومالي بس قبيل ولا شيء وعن كبر من قبيل كذا تتهاو ورك هذا تناقش مبادئ الحزب قاعد أسمع عصا وحاصل حياة ناس صومالي على قيديان توفيق شيرة MUUSE بوتلاند TV مقالة الإسخدام ودن كهولن.